sanadkii labaad oo xiriir ah ayaa Holwadaag ku guuleysatay koobka kooxaha xaafadaha degmada Baraawe kadib markii ay rigoorayaal uga adkaatay dhigeeda Dayax ciyaar waqtigeedii loogu talagalay kusoo idlaatay barbaro eber ah. Labada xaafadood ayaa waxa ay soo bandhigeen ciyaar xamaasad lahayd oo ay ku riyaaqeen taageerayaasha labada xaafadood. Xaafadaha Dayax iyo Holwadaag ayaa khasaariyay dhowr fursadood oo ay goolal ku dhalin lahaayeen, isla markaasina hal dhinac laga yaabay inay guushu raacdo inta aysan dhammaanin waqtiyada ciyaarta loogu talagalay. Ugu dambeyn waxaa la isla aaday rigoorayaal si loo go'aamiyo ciyaarta, waxaana 3-0 rigoorayaal ah ku qaaday Holwadaag. Xaafadda Holwadaag oo sanadkii labaad oo xiriir ah ka qaadayso xaafadda Dayax. Tartankan ayaa ujeedadiisu tahay mid isdhexgal bulsho ah, waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Baraawe Zakariya Baaba oo koobkan guddoonsiiyay xaafadda Holwadaag. Maxamed Khadar, Warsan Radio, Shabeellaha Hoose.